alaabtan aan gacmaha aan marsanayo hal mar haddii aad jirka oo dhan aa wada marsatid, hadda weji ilaa lug aa ku qubaysatid, halkaas mar ayuu jirka daalka, khayraada, wasaqda halkaas mar ayuu kasoo nadiifinayaa jirkana scrub-kan wuu cadeynayaa, qurux ayuu ka dhigayaa, sidoo kale jirkana wuu jilcinayaa, jirkana dhalaal uu siinayaa. maasha Allah ayuu ka dhigayaa. waxaa waaye waa scrub hadda dhammaystiran waaye, jirkoo dhanna hadda uu isku kaa wada ekeysiinayaa. haddaa aroos tahay scrub-kan ka faa'iideyso oo hadda jirka ku nadiifso oo ku dhaqo. haddaa hooyo umulbaxa tahay ka faa'iideyso. haddaa marwo xaajigeed usoo socdo tahay ka faa'iideyso. haddaa qof iska caadiya tahay, hadda qof kasta nadaafada uu u baahan yahay ka faa'iideyso insha Allah. kana bogta walaalahayga fiidiyowga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u sameysanayno. maxaa ka fiican hay adoo gurigaaga joogtid, jirkaaga nadiifso, jirkaaga dhaqo, jirkaaga hadda cadeyso. wax ka fiican ma lahan, weliba wax natural hadda maasha Allah isku nadiifi, meel laga helo ma lahan walaalahayga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا كحران نجح كيتشين أم بيوتي سو دوادا walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena نجح كيتشين أم بيوتي uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin hadeeni 10 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida qaybta video kusoo daawateen, sida title video kusoo aragteen. hadda wixii xawara xagga kusoo koobnay scrub-kan baan sameysanaynaa walaalahayga maanta insha Allah. bismillaah, scrub-ki ayaan sameysanaynaa walaalahayga. jirka wasaqda ka dejinaya, jirkana cadeynaya. marka hore waxaan soo qaatay weel yar aan scrub-ka aan iskula dardarsano aan ku qasano. sidoo kale waxa kale u baahan tahay waxa saxanka yarka waxa inoogu jira walaalahayga waxa waaye waa saabuun qubays, saabuun doof aan soo hoolay waaye walaalahayga. waxaan ku soo hoolay birta karootada, waa hal jab oo saabuun qubaysa aan soo hoolay waaye walaalahayga. inaa fahanteen ayaan rajeynayaa. saabuuntan waa inay tusinayaa waa dooftii caadiga ahayd oo lagu qubaysanayo. saabuunteeni hoolneed ayaan ku shubanay weelka yarka walaalahayga. waana tana saabuunta walaalahayga, waa noocan midaan isticmaalayo waa doofta. any saabuun aad jeceshahay ayaad isticmaali kartaa ama aad ku bedelan kartaa booska aniga doofta aan ka isticmaalayo walaalahayga. waxaa kaloo ku darsanaynaa, waxaa kaloo u baahan tahay Nescafe ayaa u baahan tahay, hal fur iyo xoogaa Nescafe ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. alaabteeni weelka inoogu jirta ama saabuunteeni markii hore inoo diyaarsaneed oo inoo hoolneed. Nescafe-gana waa kaas walaalahayga, noocan ayaa isticmaalaya. nooca bacda, nooca caagadaha ku jiro, nooca dhalada, mid allaale midka ay heli kartid ayaad isticmaali kartaa. Nescafe-gi iyo waxaan isku qasayaa saabuuntii ayaan isdhex gelinaya walaalahayga oo wax yar isku walaaqaya. markii aan isku soo walaaqay saabuuntii iyo Nescafe-gi walaalahayga, sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa saliid ayaan ku darsanaynaa. 3 qaando saliid qumba ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. meesha aniga saliid qumbaha aan uga darsanayo in saliid oo markaas aa heli kartid ayaad ku bedelan kartaa. muhiimadu waa inaa xoogaa yaro saliida aa ku darsataa. waxaan kaloo ku darsanaynaa walaalahayga markii aan saliid aan kusoo darsanay biyo ayaan ku darsanaynaa. ayadana 3 qaando biyo ayaan ku darsanaynaa. alaabta ma rabno xoogaa inay naga biyoodo, marka waxaa waaye saliida iyo biyaha labadaba waa inaa xoogaa qiyaas ah ugu dartaa. biyihii markii alaabtii aan kusoo darnay walaalahayga waan isdhex gelinaynaa. hadda alaabtii si fiican ayaan isku qasaynaa, si fiican ayaan isku dhex gelinaynaa. markii aan isku soo qasnay alaabtii walaalahayga sidaas ayay inoogu soo baxday. biyo hadda ma aan u jeedin, xoogaa way yara culus tahay. marka hore hadda biyaha ka badin lahayn oo kale biyo naga noqon lahayd. marka biyaha saliida labada ka badinin, qiyaas ahaana kula shubo, in yar ku dar. haatana waxaan ku darsanaynaa alaabteeni, alaab kale oo yar oo fudud ayaan ku darsanaynaa. waxaan ku darsanaynaa walaalahayga waxa weelka waxa inoogu jiro waa bariis shiidan waaye, bariis aan soo shiiday waaye, waa bariis cadde aan soo shiiday ayaan ku darsanay alaabtii inoo qasneed walaalahayga. alaabtii iyo waxaan isdhex gelinayaa bariiskii ayaan isku qasayaa oo hadda si fiican isku dhex gelinaya walaalahayga oo aan isku qasayaa. scrub-kan inaba caadi maahan, hal mar haddaa ku qubaystid jirka dhan nadiif ayuu kuu noqonayaa. wasaqda ku jirto dhan hadda halkaas mar ayuu kasoo gelin garaynaya walaalahayga oo kasoo nadiifinaya. hadda markaa scrub-kii aan soo qasay ugu dambeyntii sidaas ayuu inoogu soo baxay walaalahayga. sidaas ayuuna diyaar inoogu yahay. haatan oo kaliya wuxuu u baahan yahay in la isticmaalo oo hadda dhac la isku siiyo. marka maxaa sameynaysaa, scrub-kaaga diyaarsanaysaa, waa qaadanaysaa musqusha aadaysaa. markaad scrub-ka musqusha u qaadatid waxaa sameynaysaa marka hore jirka biyo yar ayaa ku shubeysaa, jirka wax yar qoynaysaa. markii aa qoysid ka bacdi ayaa scrub-kan jirka aad marsanaysaa, weji ilaa hadda lug ayaad marinaysaa. jirka oo dhan ayaa wada marsanaysaa oo hadda si fiican u marsanaysaa.
markii aad jirka scrub-ka aad wada gaarsiisid oo aad wada marsatid sida haatan oo kale gacanta u marsanayo kale ani haatan waxaan tusinayaa gacanteeda marsanayo walaalihiga marka sidaas oo kale ayaa scrub-kan jirka u marsanaysaa jirka guud markii aad marsatid waxaad soo qaadanaysaa brush ayaa jiro korka lagu dhaqdo haddii brushkaas ay haysatid oo kale waad iskula rugaysaa scrub-ka iyo brushka jirka ayaa ku rugaysaa haddii aad brush haysanin waxaad sameynaysaa jawaan cadeer ayaa soo goosanaysaa jawaan cadaha ayaa jirka aad kula dhaqaysaa scrub-ka oo kula rugaysaa kabacdina hade waad ka qubeysanaysaa oo iska raacinaysaa markaas saabuun haddii aan leed inaad jirka ku dhaqtid haddii aan leed shaambo inaad ku dhaqtid ayaad iskaga raacinaysaa kabacdina hada kareemkaaga iska marsanaysaa haddii markaa scrub-kan ku qubeysatid hubaal jirkaaga waa ka dareemi doontaa insha allah ilaahay idinkiis muraayadana kama hor dhamaanaysid wixii wasaq jirka ku jirtay oo dhan hade halkaas mar ayuu soo clean gareynaya oo soo dhaqaya oo soo nadiifinaya jirkana wuxuu ka dhigayaa cadaan qurux dhalaal maasha allah iftiinkaaga baxaayo sidoo kale scrub-kan jirka wuu jilcinaya daalka iyo madowga iyo wasaqda wuxuu dhan hada wuu ka dejinaya hadaaba isjecjeclaan doontid markii aad ku qubeysatid insha allah hadaa aroos tahay alaabtan jirka ku dhaqo oo ka faa'iideyso hadaa marwo xaajigeeda usoo socdo tahay kale ka faa'iideyso hadaa hooyo 40 baxa tahay ka faa'iideyso hadaa qof iska caadi tahay hadaa qof kasta nadaafada u baahan yahay ka faa'iideyso sidoo kale scrub-kan waad save gareysan kartaa oo muddo ku ooli karaa sida haatan u jeedin oo kale waxaan ku shubanayaa caag yar ayaan soo qaatay oo isku daboola caagan oo kale ayaad ku shubanaysaa kabacdina hade daboolka u dheereysanaysaa qaybta hoose fridge-ka ayaa iska dhiganaysaa markaa halaabayo ma isbedelayo halkaas ayuu ku oolayaa muddo 2 weeks wuu ooli karaa scrub-kan walaalihiga mar alaal markaa u baahatid halkaas ayaad ka isticmaalaysaa kabacdina hada daboolkiisa ayaad ku celinaysaa oo u dheereynaysaa hadda walaalihiga waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo waa inoo kulantay dabo xiiso leh iyo anigoo inii sido video kale cusub walaalihiga videogeena maanta intaas ayaa kusoo afmeeraynaa insha allah intaas ayuu noo egyahay hadda videogaana walaalihiga sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga channelka haddii aad ku cusub tahayna soo dhawo minankaaga waa channelka inoo subscribe gare inoo like gare haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay mar walbo la joogaaga quruxda badan